maxamed cabdulle abkow cumar biyamaalow ayaa loo xukumay Diseembar 14keedii sanadkii tagay weerar argagixiso uu ka kala geystay maqaaxida baar Cagaweyne ee Kisbilan Restaurant agaarka hotel Wehliya ee Muqdisho iyo debley khawaarij ah uu u dusiyay garoonka aadan cadde ee Muqdisho. 11 qof ayaa ku dhimatay gaari uu ku baakimay maqaaxida baar Cagaweyne halka 16 kale ay ku dhaawacantay waana Maaj 28keedii 2019 inta la xaqiijiyay. Maaj 23 waxaa laba dabley ah uu geliyay aeroboortka ku nafwaayay Cabdirasaaq Aabi Cali oo kamid ah haliyadii ka falcelinay dhacdadaasi. xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad hase ahaatee maxkamadda sare ayaa mar kale ku raacday xukunka maxkamadda darajada koowaad Febraayo 25keedii sanadkan 2023. abku waxa uu ahaa laba xidiglo hore balse dib u habeentii diiwaan gelinta ciidamada ayaa laga saaray militariga markii la waayay sax ahaanshiyaha labadiisa xidig. waxa uu iskala saftay argagixisada xilli dambe oo ah 2018 waa 36 jir ku dhashay Jamaame oo Jubbada Hoose ka tirsan. Shariif Maxamed Barkhadlayaale January 12keedii sanadkan ayaa loogu xukumay dil toogasho ah qarax uu dhigay Muqdisho Mall Febraayo 4keedii 2019. wararkaasi waxaa ku nafwaayay 16 qof halka 38 kale ay ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyay. rafcaan ayuu qaatay jeega maxkamadda sare waxayna mar kale maxkamadda sare ku xukuntay dil toogasho ah Febraayo sanadkan. waxa uu soo noqday taliye urur waxa uu ka gaaray ciidamada darajada dhamme waxaase xilli dambe oo ah 2018 oo la saftay argagixisada waa 53 jir ku dhashay Wisel Mudug. maxamed cabdi nuur jiiro oo lahaa magacyo kula shaqeeyay argagixisada sida maxamed deere Khalid iyo Dhakhtar Fanax ayaa lagu xukumay dil toogasho January 15keedii sanadkan. rafcaan ayuu qaatay maxkamadda sare waxayse ku raacday maxkamadda darajada koowaad isla xukunka lagu riday jiiro. Dhakhtar Fanax waxa uu argagixisada ka soo mid ahaa ilaa soo shaabuxoodii waxa uu ka soo shaqeeyay wax kasta oo argagixisadu fasho. waxa uu ku soo kordhiyay saaxada hadal haynta argagixisada falsafadu gaara sida iska dhigida sargaal dhakhtar. waxa uu xitaa ku dhiiraday inuu shaqaale rayid iyo mid u shaqeeya hay'adaha adduunka iska dhigo. 38 jir ku dhashay Beledweyne ayuu ahaa. waxa uu lahaa fulinta weerar lagu qaada dhalinyaro kubad ku daawanaysa Garas Baaley duleedka Muqdisho. wararkaasi waxaa ku dhintay 3 ruux oo ka mid yahay wiil 4 jir ah. qarxe ka dhacay Juulaay 2 iyo Agoosto 19keedii maqaaxiyada danyar ay leeyihiin ayuu fulintooda qayb ka ahaa waxaana qarxeedaasi ku dhintay 20 qof halka 11 kale ay ku dhaawacmeen. Febraayo 10keedii 2020 waxa uu geeyay naftii haligii isku qarxiyay ergada doorashada reer waqooyiga Algaabta. ismiidaamintaasi hal askari ayaa ku geeriyooday 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maanta ayaa laga oofiyay xadkii qasaasta saddexdaba sida toogashada kadib warbaahinta uu sheegay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 3 2023 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiiro Dictor Fanax 2 maxamed cabdulle abkow cumar biyamaalow 3 shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego wabillahi tawfiiq. biyamaalow jeego iyo dhakhtar Fanax waxay ahaayeen mid kamid ah imtixaanada ugu adag ee amniga guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Muqdisho ay soo martay. waxa Allah shartooda uu kaga kaafiyay gacmaha sharciga iyo ciidamada u tababaran shiishka gaar ahaan haram cad iyo koofiya casta militariga. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka tiirka iskool booliisiya.